لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات ugu yaraan waxaad maqashay COVID-19 ama coronavirus 19 kaasoo soo baxay dabaaqadii 2019 wuxuuna noqday xanuun aad ugu baahsan caalamka idil COVID-19 waxaa sababo SARS coronavirus 2 ama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 maxaa yeelay hidda ahaan waxay isku mid yihiin SARS coronavirus 2 oo dilaacay 2002 coronavirus-ka guud ahaan wuxuu ahaan jiray mid aan waxba dhibeynin bulshada dhexdeeda wuxuu keeni jiray rubac ka mid ah xanuunada loo yaqaan hergebka halkani waa meesha ay sarta ka quruntay maxaa yeelay xayawaanka loo yaqaan fiidmeerta ayaa wuxuu yahay xayawaanka saldhigga u ah xanuunka coronavirus kadibna waxa uu gudbiyay bahalka loo yaqaan bangalonka kadibna waxa ku dhacay gene mutation waxa uu sii gudbiyay bini aadamka dhamaadkii 2019 taasoo ka dhigtay in xanuunkii uu ka soo bilowdo magaalo ka mid ah magaalooyinka China oo loo yaqaan Wuhan una gaaro caalamka idil laga soo bilaabo January ilaa Mars kiisaska la diiwaangeliyay waxay noqdeen 19578 case dhimashada waxay gaaraysay 3809 taasoo macnaheedu ay tahay 3.5% ama 3.5 boqolkiiba tani waa celceliska dhammaan adduunyada oo idil inta uu gaaray cudurka markii aan ka hadlayno dhimashada heerka ugu badan ee China uu gaaray January markii ay bilowga ahayd wuxuu gaaray 16 boqolkiiba halka February uu gaaray 0.8 oo ah wax ka yar hal oo sudacan ayaa waxa saldhig u ah laba arin oo muhiim ah midda koowaad ayaa waxay tahay in isbitaalada iyo goobaha caafimaadka ee dalka China ay buux dhaafiyeen dad aad u fara badan taasoo keentay in la xakameyn waayo cudurkii siina faafo ayna ugu dambeyntii keentay dhimasho aad u fara badan midda labaad oo ay sameeyeen ayaa waxay tahay wacyigelin aad u fara badan baaritaano fara badan karantiil fara badan iyo inay ku dadaaleen haddii aan isbarbar dhigno hergebka caadiga ah oo keeno 0.1% ama dhimashada boqolkiiba hal ayaa wuxuu yahay coronavirus mid ka dhimasho badan marka loo fiiriyo 8 ilaa 35 jeer haddaba dadka ayaa ku kala duwan xanuunkan iyo saameynta uu ku yeelan karo ahaan da'da yar ayaa waxay tahay ku keesi badan xanuunkan halka da'da weyn ee ka weyn 60 sano ilaa 80 sano ay tahay kuwa ay soo diloonayso ama xanuunkan u nugul marka laga fiiriyo dadka qaba xanuunada gaarka ah inuu yahay mid u nugul cudurkan sida dhiigkarka sokorta wadnaha dadka feeraha ka jiran haddaba waxaad ogaataa jirooyinka gaarka waxa u badan dadka ka weyn 60 sano sadarteed waa dhici kartaa in labada shay ay u kulmaan xanuunkiina uu ku sii ziyaado warka farxadda leh ayaa wuxuu yahay in xanuunkan looga hortagi karo karantiilka ama in dadka xanuunka qabo meel gooni ah lagu haayo kadib markii ay China iyo wadamo badan ay isticmaaleen inay aad u xadidaan dadkii cudurka qabay ayaa waxaa timaaday in xanuunkii uu dib hoos ugu dhacay inta baaritaan ee hadda la sameeyay ayaa muujinayso in 80% dadka xanuunka qabo ay yihiin kuwo aan u jiranayn oo u jiifin halka dadka 20% ka soo haray ay develop gareeyaan ama ay sameeyso qaandho hergeb qufac iyo feeraha jiradaan tan waxay timaadaa marka caabuqa sanbabka uu yahay mid aad u daran biyo badanna ay ka buuxsamaan gudaha feeraha ama sanbabka iyo hareeraheedaba infectionka ayaa waxa uu sababi karaa septic shock wax loo yaqaano oo ah in dhiigga pressure-kiisa ama cadaadiskiisa uu aad hoos ugu dhaco taasoo keeni karto in jirka uu waayo hawadii oxygen-ka ahayd ee uu ku noolaa dhimashada ugu badan ayaa waxay ka timaadaa labadan qodob oo ah in septic shock uu dhaco ama uu dhaco ARDS ama caabuq ku dhaca feeraha kaasoo keeni doono in biyaha sanbabka ay galaan waxa uu daran dadka da'dooda ay ka weyn tahay 60 sano iyo dadka sigaarka cabo iyo dadka qabo jirooyin gaarka ah
sida cudurrada wadnaha oo kale. Marka laga soo tago in uu virusku yahay virus halis badan, waxaa kasii daran inuu yahay mid aad xawli ugu gudbayo. Inta badan xanuunkan wuxuu gudbaa marka qofka uu hindhisoodo ama uu qufacayo. Dhibcaha yaryarka ah ee uu kasoo saarayo sankiisa iyo afkiisa ayaa si fudud waxay u gaari karaan qof kale, taasoo keeni karta qofkii kale inuu u gudbo xanuunkii. Markii qof uu qabo COVID-19 uu tago xaafad aanan lahayn coronavirus, wuxuu noqonayaa case cusub oo hadda soo galay. Haddii qoyska ay bilaabaan inay ayagana sii gaarsiiyaan bulshada kale, waxay sii qaadsiin karaan bulshadii kale. Taasina waxaa loo yaqaanaa isgaarsiinta gudaha. Taasina si fudud ayaa lagu gaari karaa in dib loo laabto lana soo ogaado kiiskii keenay xanuunka. Inay isgaarsiiyaan iyadoo aan la ogeyn cidda rasmiga ah ee uu ka yimaaday xanuunkan waxaa loo yaqaanaa gaarsiinta bulshada dhexdeeda ama community transmission. Si looga hortago community transmissionka inuu sii bato, waxaa la joojiyey meelihii bulshada ee isticmaalaysay sida iskuuladii, shirarkii, aroosyadii, xafladihii, kubadihii, dhammaan waa la joojiyey, iyo isku imaad kasta oo dhici karay. qofka markii uu jirrada qaado ama viruska qaado ilaa 5 maalmood ay qaadanaysaa inuu soo muujiyo xanuunkii. taasina waxaa loo yaqaanaa incubation period ama xilliga soo muuqashada. Halkan ayay ka taagan tahay dooda ugu kulul. Maxaa yeelay waxaa la isweydiinayaa qofka xanuunka ka muuqdo ama qofka xanuunka uusan ka soo bixin 5 beriye hore ma faafin karaa cudurkii oo xanuunkii bulshada kale ma sii gaarsiin karaa? haddaba haddii aan fiirino, inta badan waxay ku beesgaraysan tahay R0 ama R9 oo loo yaqaan reproductive number faafitaanka cudur sida dhaqsiyaha badan ee uu ku gaarayo bulshada kale. haddii hal ruux uu qabo, halkaas ruux hal ruux gaarsiinayo, R waxay la mid tahay hal. laakiin R markay laba la mid tahay micnaheedu waxaa waaye hal ruux wuxuu gaarsiin karaa laba ruux. iyo haddii R3 ay tahay hal ruux wuxuu gaarsiin karaa 3. haddaba haddii reproductive numberka ama R-ka uu ka yaryahay hal, wuu yaraanayaa, xanuunkaasna ma faafayo. haddii R-ta oo hal la mid tahay, macnaheeda xanuunkaas wuu jirayaa ama si dhexdhexaad ah. haddii R-ta ay ka weyn tahay hal oo 2, 3, 4 ay noqonayso, wuxuu noqonayaa xanuun aad ugu baaha bulshada. haddaba COVID-19 R numberkii waa 2.2. haddii aan garab dhigno hergebka caadiga ah, numberkiisa waaye 1.3 oo ah hal wax ka badan laakiin aan hal bar gaarin. sidaa darteed COVID-19 wuxuu ku faafi karaa si yar oo fudud. haddaba si loo xaqiijiyo in uu yahay coronavirus, waxaan baarnaa reverse transcription polymerase chain reaction, kaasoo lagu ogaan karo amount yar ama xaddi yar oo ka tirsan viruska RNA-da viruska COVID-19. balse weli waxaa jiro qayb kamid ah xaddiga RNA-ga oo yar oo ka karo baaritaanka PCR test. haddaba in mararka qaar aan ahayn sensitive. haddaba haddii shakiga uu sii badan yahay, waxaa fiican in la isticmaalo CT scan feeraha si loo xaqiijiyo in pneumonia ay jirto, raajo si loo ogaado viral pneumonia ay jirto. waxaa kaloo jira habab kale oo lagu ogaan karo la isticmaali karo oo ugu horeyso quick flu test wax loo yaqaano, ama si fudud oo hergebka loo ogaado respiratory viral panel. taas baa la isticmaali. haddii aan daaweyntiisa tagno, wax daawo ah malaha. waxa uu leeyahay oo kaliya supportive care ama qofka in lagu caawiyo in biyo badan la siiyo, oxygen in loo kordhiyo, oxygen loo xiro, iyo in laga caawiyo ventilationka ama hawo qaadashada. waxaa jirto hal daawo oo loo yaqaano remdesivir, taasoo loo isticmaali jiray Ebola viruska, laakiin markii lagu tijaabiyey dad fara badan oo trayla ah, ilaa haatanna ma jiro wax cad oo daawo u ah coronavirus. dhanka kale, markaan fiirino, wax talaal ah uu leeyahay malahan xanuunka coronavirus, laakiin weli waxaa jiro iskudayo fara badan oo la sameynayo si loo gaaro talaal laga coronavirus 19. waxay is u muuqataa inay gaari karto xilliga gabagabada talaalkaasi 2021. haddaba hadafka ugu weyn ayaa waxa uu yahay in laga hortago in qof kale uu gaarsiiyo COVID-19. meelaha uu ka jiro tiin gudbintiisa, qof kasta oo leh calaamadaha khafiifka ah ee xanuunkan waa inuu mask ama waxa loo yaqaano face shield, wejiga lagu daboolayay iyo sankii af, si uu u ilaaliyo bulshada kale inuu gaarsiiyo. sidoo kale waa inuu gurigiisa joogaa oo qolkiisa uusan soo dhaafin. haddii xanuunka uu kasii daro, waxay wici karaan goobtii caafimaadka uu ku xirnaa inay la dagaalamaan coronavirus 19. dhanka kale, dadka qabo xanuunada ee la nool dad kale waxaa lagula talinayaa inay qol gooni isticmaalaan, musqul gooni isticmaalaan, joodariyaasha iyo firaashada gooni u ahaadaan, raashinka alaabta la isticmaalana ay si gooni u isticmaalaan oo ay dadka kale la isticmaalaan si aysan u sii gaarsiin bulshada kale. waxaa kaloo jiro case la xaqiijiyey COVID-19 ahaa oo u gudbiyey ay, laakiinse xanuunkii COVID-19 kama uusan soo muuqanin eygii. sidaa darteed lama hubo eyga ma sii gaarsiin karaa bulshada mise ma sii gaarsiin karo. sidaa darteed eeyaha iyo yaanyuurada ma ahan uu gudbin karo xanuunka coronavirus 19. qof kasta oo isku arka calaamadaha COVID-19 ama calaamadihii aan soo sheegnay, waa inuusan ilmaha yarka aysan tegin iskuulkii ama shaqadii ama meel bulshada isugu imaaday oo dhan aysan tegin. sidoo kale waa inuusan
sidoo kale dadka da'dooda ay weyn tahay iyo dadka qabo chronic diseaseska ama cudurrada muddada soo hayay laakiin aan wax calaamad lahayn waxaa ku habboon ay joogaan meelo gaar ah oo ayaga ay isku ilaalinayaan si ay isaga ilaaliyaan in ay ku dhaco xanuunka COVID-19 ama coronavirus 19. si taas loo sameeyo qofku wuxuu u baahan yahay inuu daawadiisa diyaarsado, raashinka cun lahaa diyaarsado, wax walba oo guriga ku isticmaali lahaan oo u diyaarsan yihiin. sidoo kale wuxuu u baahan yahay qof wixii emergency ah oo u dirsadana inuu haysto. coronavirus si fudud uguma gudbo haddii qofka uu kaa fog yahay ama haddii hawada uu galo muddo dheer kuma jiro. laakiin candhuufta qofka oo sootay ama oo markuu hadlaayo kasoo baxaysa afkiisa ayaa si fudud waxay u gaartaa qof kale, weliba marka uu facayo ama uu hindhisayo. noocyo kamid ah coronavirusyada ayaa waxay awood u leeyihiin inay ku kor noolaadaan meelaha oogooyinka mobile cable computerka laakiin aanan joogin meel uu aad ugu dilacsan yahay. waxaa lagula talinayaa 1 inuu ka fogaado safarka, inuu u safro meel xanuunka jiro. 2 inuu ka fogaado meelaha aadka bulshada isugu imaado. 3 in ugu yaraan 6 feet ama 2 mitir uu ka fogaado qofka xanuunka ka muuqdo ama qufac iyo hindhisada leh. midda afraad waxay tahay inuusan isticmaalin face mask, maxaa yeelay wuxuu ku sii celin karaa jeermiskii coronavirus ayuu gudaha celin karaa, taasoo keeni dhibaato badan. N95 face mask waxaa loogu talagalay oo kaliya dadka howlwadeenada caafimaad. qodobka shanaad wuxuu yahay sidoo kale in aad ka nadiifiso, iska hagaajiso oogooyinka iyo meelaha dusha ama aad darbiyada ama ahaado meelaha aad isticmaalayso daily iska nadiifiso. qodobka ugu muhiimsan dadka uusan soo gaarin xanuunkan coronavirus iyo in gacanta aad u nadiifiso waa qodob aad muhiim u ah. sidoo kale iska ilaali inaad taabato gacmahaaga ama aad taabato sankaaga, afkaaga ama indhahaaga, waana meesha loo yaqaano T-zone ama aagga T-da u samaysan. waa meesha ugu badan ee viruska uu ka galo, waa sanka, afka, labada indhood. shaqaalaha caafimaad ee la falgalayo dadka ku dhiban shaqaalaha caafimaadka ee la falgalayo xanuunada COVID-19 waxay u baahan yihiin inay si gaar ah ugu taxadiraan dhibcaha gaarayo iyo taabashada. midaas waxaa ka mid ah inaad xirato dhar aad u difaac ah sida face mask oo loogu talagalay qalliimada, gloves ama gacmo gashi, iyo goono gacmo dhaadheer leh, iyo face shield ama eye protection wax indhaha ka ilaaliyo. marka la sameynayo waxyaabo la xiriiro hawada si gaar ah marka ay sameynayaan taxadirada gaarka ah sida markii ama bukaanka markii loo sameynayo bronchoscopy oo feeris la fiiro ama la sameynayo CRB oo ah in la soo kiciyo wadnihiisa kale. waxaa muhiim ah in la xirto maskiga loo yaqaano N95 maxaa yeelay wuxuu difaaci karaa 95% bakteeriyada yaryarka ah sida viruska